Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliya Somaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana garoonka Ugaasnuur ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare kaas oo horay magaalada isagu lagu soo dhaweeyay soo dhaweynta madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Puntland ee maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa ahayd mid aad u sareysay waxaana madaxda halkaasi ku soo dhaweeyay sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada oo iyaguna garoonka ku sugnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaana ka mahad celiyay soo dhaweynta maanta lagu sameeyay magaalada Dhuusamareeb taas oo soo dhaweynta maamulka Galmudugna oo wakiil u ahaa madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan mas'uuliyiinta ayaana loo soo galbiyay xarunta loogu talagalay inay degaan mas'uuliyiinta oo ku taala bartamaha magaalada Dhuusamareeb halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wufuudda heer caalami iyo heer dawladda Soomaaliya caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa hadda nala soo istaagay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan si uu ugu soo dhaweeyo kalimaadkiisa wanaagsan uu yiraahdo maadaama loo marti yahay Galmudug madaxweynaha Galmudug oo ku soo dhaweynayaa ku soo dhawaaw waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shacabka iyo ciidamada iyo dhammaan reer ahlu sunno dhan ama gobolada dhexe la yiraahdo ama ahlu sunno la yiraahdo dadkii sii jooga qarada tan ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maantay waxa loo yimid oo aan soo dhameynay madaxweynayaashii dowlad goboleedyada hadda Maxamed Madoobe xoogaa xanuunsan ma intii kala maanta waxay ku sugan yihiin Dhuusamareeb ugu dambeyn waxa hadlay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana uu mahad celiyay guud ahaan dadka ka soo shaqeeyay soo dhaweynta qiimaha badan ee maanta lagu sameeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug dadkan iyo runtii dawladnimada aadan ugu mahad celinaynaa soo dhaweynteena soo dhaweeyeen gaar ahaan maamulka Galmudug iyo ahlu sunno heshiiskoodina aad iyo aad soo dhaweynaynaa waa heshiis taariikhi ah caasimadda oo maanta loo soo guuray dawladdu waxay u tahay horumar ay u tahay Soomaaliya oo dhan ay horumar u tahay runtii aad iyo aad uga hambalyeynayna dhammaantood heshiisyadan dadkii ka shaqeeyay iyo dawladihii dhammaantood iyo dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeyana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waa wax taariikhi ah oo Soomaaliya oo dhan ay u aayeyso oo Soomaaliya oo dhan ay anfacayo waay marka in alaale intii khilaafa sida kan loo dhameeyay in loo dhameeyaan rajaynaynaa wax alaale wixii Soomaaliya ku dhex jiro marka waxaan leenahay reer Dhuusamareeb aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aad awalba aad Soomaaliya ka ahaydeen in Soomaalidu lafdhabarkeedii iyo heshiisideedii iyo wanaageedii aad lafdhabar uga ahaydeen tanina taasayna tusaysaa runtii marka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa si kastaba ha ahaatee maatanka wafuudan ay maanta ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirka maalinta Biritaa lagu soo dhaweynayo guud ahaan maamulka Galmudug xubnihiisa kala duwan oo la filayo biri inuu furo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo habeenkii xalay ah ku hoyday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada reer Dhuusamareeb ayaana u taagan soo dhaweynta martida u imaanaysa magaalada Dhuusamareeb Ibraahim Xasho Cusable Dhuusamareeb